عروساتك سيدا قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta ayuu taariikhdu tahay 1 bisha shanaad 2021 galfadhiga 8aad kulankiisii 16aad kooramka annaga waa 140 xildhibaan ajandaha kulanka waa codaynta ogolaanshaha hirgelinta sharciga number 30 ajanda aanu codayno waa mahadsantiin xildhibaanada sharafta leh waxaad dhegaysateen khudbaddii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo nuxurkeeda ahaa in dib loogu noqdo heshiiska doorashada 17 Sebtembar si loo soo afjaro kala aragti duwanaanta xubnaha golaha wadatashiga qaranka isla markaasna loo dedejiyo doorasho dalka inay ka dhacdo sidaasi oo kale waxaad akhrisateen codsiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ku codsanayo in loo ogolaado in dib loogu noqdo heshiiskii doorashada 17 Sebtembar xildhibaanada sharafta leh arrintan hortaalla ma aha mid dad gaara muxaafid iyo muxaarad si gaara u khusaysa waa arrin saamaynaysa amniga iyo nabadgelyada iyo guud ahaan nolosha shacabka Soomaaliyeed. golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka wuxuu matalaa shacabka Soomaaliyeed wuxuuna u adeegaa dantooda wuxuuna ku shaqeeyaa danta dalka iyo dadka iyo diinta sida ay ku jirto mar walba. heshiiska 17 Sebtembar idinkaa hore u ansixiyey oo hadda looma baahna inaan ka doodno ilaa heshiis aan wax ka bedelayno wax ku darayno ma aha. xildhibaanada sharafta leh madaxweynaha wuxuu codsaday in lagu noqdo 17 Sebtembar maadaama sharciga 17 Sebtembar waxba aan laga bedelayn aan waxna lagu kordhinayn jidka kaliya noo baahan inaan u codayno waayo marka waxaan codsanaynaa xogeyaha inuu diyaar garoobo waa codaynaynaa waa codaynaynaa haa iyo maya coday because heshiis wax ka bedeli maysid fariiso xildhibaan
يا فيري horta aan isdhegaysano heshiiska 17 September baarlamaanka wuxuu ansixiyay 26 September waa sidaasi fariista xildhibaanada sharafta leh fariiso xildhibaanada sharafta leh codsiga madaxweynaha oo ah in dib loogu noqdo sharciga heshiiska siyaasadeed 17 September doorashada baarlamaanka inta ogol u codaynaysa gacanta taagto ala soo tiriyo ala dejiyo inta diidan gacanta taagto ma jiro yaa ka aamusay ala soo gudbiyo codaynta markaan sheegno waxaa soo noqon doona madaxweynaha si uu ugu mahad celiyo golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka oo codaynta aan isdhegaysano xildhibaanada codaynta sidaan ayay u dhacday heshiiska 17 September in dib loogu noqdo wax ka aamusay ma laha xildhibaan diiday ma laha waxaa ogol u codeeyay 140 xildhibaan sidaas awgeed waxaa loo noqday heshiiskii 17 September sidaas oo ansax ku yahay waxaan sugaynaa madaxweynaha soo galaya si xildhibaanada ugu mahad celiyaan
mudane madaxweyne sida adiga aad codsatay khudbadaadii iyo warqadaadii aad guddoonka baarlamaanka u soo gudbisay baarlamaanka wuxuu u codayay in dib loogu noqdo heshiiskii 17 September waxaan ku siinaynaa kelmadaadii ku aadanayd ansixintaas 17 September soo dhawo mudane madaxweyne بسم الله الرحمن الرحيم قدومي ومحسنتين ومحسنتهاي هذه حلبانا شرفت له وحنكون فرح سنة هاي أن كم هالعلنا يا حلبانا شرفت له إن تكون صبرتين كلاب كتنازل وأضمد الصوماليات وتنازل شيء هذا بقى سيعان وقتي بدن نوغلو من dalkana aan ugu horseedno doorasho si xasilooni ah ku dhacda lagana wada qayb qaato waxaan ra'iisul wasaaraha u xil saarayaa qabanqaabada iyo martiqaadka shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah iyo gobolka Banaadir si loo meel mariyo qodobadii lagu heshiiyey 17 September iyo kii 16 Febraayo ee magaalada Baydhabo oo aan wax shuruud ah aanan lagu xirin insha Allah waxaan xukuumadda ka rajeynayaa inay hawshaas u guda gasho sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed ay markhaati noo noqdaan oo ay kala fahmaan cid doonaysa inay doorasho dhacdo iyo cid diidan cid doonaysa inay foodo qax iyo qori wax ku raadiso iyo cid doonaysa inay qaadato go'aan kasta oo ay ku jirto danta dalka iyo dadka iyo diinta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweynaha waa fasaxaynaa waxaan rabnaa kulanka annaga waa xiranaynaa madaxweynaha iska fasaxno xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa arrin muhiim ah waxaan rabnaa sida aad la socotaanba labadii kalfadhi oo ugu dambeeyey way isku furmeen oo baarlamaanka fasaxa ma gelin haddana lama geli doono